waxaan u mahadnaqayaa Somali Innovation Hub iyo LM oo caawa abaabulkan iyo sukeenkan bulshada waqti badan geliyay kuna dadaalay inay dhacdo inoona soo bandhigay mowduuc aad muhiim uga ah bulshadeena oo ah arrimaha bulshada ay tahay in la iska waraysto marka lagu sameeyo daraasad lagu sameeyo lagana wada qayb qaato haddaan si gaar ah aan background-ka arrintan uga warramo waddankeenu wuxuu ahaan jiray waddan dhir leh oo kayma ah oo xayawaanka oo dhammi ku nool yahay oo maxaa la yidhaahdaa geed walba oo adduunka jira intiisa badan ay ka baxdo ee climate-ka maaragtay ka bixi kara laakiin waddankeennii isticmaalkii bulshadeenna oo aan ahayn isticmaal wanaagsan ayaa sidan u galay ma garanayo dhalinyaro badan inay ka warhayso laakiin waxaa dhici jirtay dhirta sideeda waxna waa lagu ootaa siyaabo kalena waa loo isticmaali jiray xataa waxaa dhici jirtay xilliyadii hore og wax la yidhaahdo oo ah qofkii xoola ka lumaan inuu kob weynaatay dabgeliyo si maaragtay kobtaasi ay u ifiso arradoo dhan oo markaa uu habeenkii baadidoonkiisa ugu galo ayuu kob dhan wuxuu surayaa dab surayaa ama qofkii wax ka habaabaan ama reerihii kala habaaba ayaa oog shidi jiray markaasay oran jireen reerkii dadkiina ka habaabay xaggaasay joogaan aynu aadno sidaasi waxay keentay isticmaalkaasi aan fiicnayn in dhulkeennii uu nabaad guur noqdo oo uu dhir la-aan noqdo magaaladan Garowe magaceeda sida ka muuqata waa garow waa geedka quraca ah ee gaagaaban oo siman bay lahaan jirtay oo aan maaragtay aad u adagtay in la dhex maro laakiin maanta waa ujeedaan waa dhul saxaara ah toggeena kan Garowe ee Majamaqarsho wuxuu ahaan jiray tog leh dhir waaweyn iyo dhir yar yar iyo dhuur iyo wax badan oo maaragtay dhir u lahaan jiray laakiin sidii loo jaranayay sarab looga dhiganayay waa waxa togga dhinaciisa carishada ka dhisan iyo dhirta ka dhisan iyo dareedaha ka dhisan lagu dhisay weeye waa la baabaash intii soo hartayna haddeer aad aragtaan in gacanta lagu hayo oo geed quwaaxiina la siibayo geedkii weynaayo oo damalka ahaana dhuxul laga dhigayo oo xataa waxaan taariikhda hore u dhicin ayaa sanadka nugaal ka dhacay markii dadkii ay ka hayaameen ay cidlowday geedkii quraca ku yaalay dad baa intay gaadiid ula tageen oo gawaari ku dhufteen markay qalaleenna jarjareen waxay ka dhigteen dhuxul dalkan marka waxaa biyey dad qaabka ay u fakerayaan iyo aqoontooda iyo garaadkoodana halkaa gaarsiisnaa hadda innagu waxaynu nahay jiilkii soo gaaray dalkii oo liita oo maaragtay dhir yar oo isbedeshay maxaa la yidhahdaa cimiladii oo roobkii ku yaraaday oo maxaa la yidhahdaa daaqii ku yaraaday hadda xoolihiina ku bateen haddeer marka abaar joogta ah ayaa dabada la isu geliyey waxaasna waxaa sababay wixii ay bulshadaasi ay iyadu geysatay oo gacanteeda ku geysatay bimaa kasabat aydi nnaas waxaynu u baahannahay marka inaynu isbeddel samayno waxaynu ka hadlaynaa oo keliya haddeer magaalada gudaheeda laakiin magaalada gudaheeda maaha waxaan rabaa magaalada gudaheeda iyo magaalada bannaankeeda oo dhulka daaqeynka ahba in isbeddelkan uu gaaro wuxuuna ku gaari karaa in wacyiga bulshada wax laga bedelo magaalada Garowe xilligii dawladdu jirtay dawladdu waxay samayn jirtay dhirta khasab bay ahayd magaaladuna beero dhirta lagu soo saaray lahayd oo beerta dawladda la yiraahdo guryahana waa lagu beeri jiray haddeer haddaad dib u milacsataan xaafadihii magaalada hore ka haray oo Wadajir iyo Waaberi dadku waa ka garaad sareeyaan xataa dadkan magaaladan cusub degay oo dhir bay leeyihiin oo dhirtooda waa ilaashadaan waana dadka ugu danyar iyo magaalada meesha ugu qiimo jaban laakiin dawlad bay soo arkeen guryahaas maaragtay dhiraysa oo magaalada ku khasabta dadku inay dhireeyaan dhirtiina sidii bay u ilaashadaan ma jirin xilligii dawladda reer guri maxaa la dhistay oo aan geed lahayn laakiin hadda waxaa dhacda dadku inay guryo qaaliya dhistaan dhirna ayaan lahayn hadda marka waxaa jirta caqabado ku gadaaman in magaaladu ay cagaar noqoto caqabadahaas waa caqabado ka imaan kara
dhinaca bulshada sidaynu hadda ka hadlayno ah wacyigooda oo inay wax yeelaan mooyaane aysan waxba tarin godintuna ay garabka u suran tahay inay wax gooyaan un bay rabaan laakiin inay wax beeraan ma rabaan caqabadana waxa weeye kuwo cimiladu ay keentay iyo meesha aan ku noolnahay halka aan ku noolnahay geed walba kama bixi karo dhirta qaar baan ka bixi karin dhirta qaarna waa ka bixi karaa geedaha marka ka bixi kara waxay u baahan yihiin in loo dooro ee dalqabad kale geeduhu ka bixi karaana wada geer abaareed maahano roob la'aan iyo biyo la'aan iyo waraabin la'aan kuma bixi karaan in yar baa kaga bixi karta caqabada kale waxa weeye dhulka noociisa dhulkan hadda ay garowa ku taallo waa dhul cusbo ah oo dhagax ah oo maxaa la yidhahdaa geedaha qaarkood u diidaya inay dhulkaas ku baxaan waxaan aragnay geedo si fiican loo tallaalay la beeray laakiin markii ay xoogaa koreen oo qof joogiis gaareen haddana dib u dhintay sababtaasna waxay sheegaysaa inayan dhulka sii mari karin oo ay nafaqaday u baahnaayeen ayan ka heli karin xoogaagii la siiyeyna ay intaa ku laysteen ayaa ka muuqata marka taasina waxa weeye dhulka noociisa waxaa iyaduna caqabada ka mida biyaha waddankan biyuhu aad bay ugu yaryihiin inkastoo garow ay nugaal ku taallo ceelashii dee hadda guryaha ku yaalay lama isticmaalo tuubooyinka magaalada la isticmaalaa biyihiina waa lacag qofkii marka wuxuu ka fikirayaa kharashka uu biyaha ku bixiyo hadduu dhir ku waraabiyo walwal kalaa sii gelaya xagga kale shirkadihii waa shirkado public private ah oo privateku uu rangareeyo badankoodana dowladaha hoose aan hoos iman sidaa darteed wadooyinka dhirtii ku taalay laftigeeda laguma waraabin karo sababtoo ah shirkaddii waxay leedahay lacag bay u baahan tahay mana ogolaanayso arrintaa waxay marka u baahan tahay arrintaasina caqabadahay ka mid tahay oo dhinaca biyaha ah mar walba biyuhu waxaa ka muuqda inay yihiin ciriir yihiin isbeddelkan cimilada hadda dhacayna wax badan oo kale uu soo kordhiyeyo roob la'aan baa badatay sidaa darteed caqabadahaasi waa caqabado jira waxaa kaloo jira caqabado kale oo ka imaanaya maxaa la yidhahdaa bulshada dhirta lagu beero badanaa dhirta hadda laamiyada ku beeran waa dhir dowladdu beertay geedkii in la beero la nafaqeeyo bir la geliyo la waraabiyo ilaa uu weligiisba dowladdu gacanta ku hayso wax aad u adag wey waana wax hadda maaragtay hawl badan loo galo iyadoo intaasi jirto ayaa qofkii gurigiisa uu ku beernaa ee isagoo geedka manaafacaadsanayay oo inuu u koro ay ahayd oo uu ilaashado ayaa wuxuu samaynayaa hagaardaamadaysi buu ka qayb qaadanaya qaarkood dadkoo dhan ma waxay samaynayaan biyo oomalay ku shubayaan biyo saliidlay ku shubayaan qolyooyin bay ku shubayaan waxay samaynayaan baabuur baa ku dhacaysa way iska fiirsanayaan ari baa cunaya waa u jeedaan carruur baa jaraysa waxba kama qabaan bulshadaasi geedkaas wax macnaa uma fadhiyo marka bulshadu waxay u baahan tahay in qofka la fahamsiiyo geedkan gurigiisa ku hor yaalla inuu isaga intifaacu yahay isaguna leeyahay geedkuna wuu ka qiimo badan yahay mararka qaarkood qof lacagtiis ka badan baa ku baxda kharashka gelaya caadiba waxaa la rabaa marka wax in la ilaaliyo baabuurkii ku dhaco cararna kama daba tegayaan taarika ka qorimayaan waxba maaragta uma arkaanin sidaa darteed bulshadu waxay u baahan tahay isbeddel iyo wacyigelin in lagu sameeyo waxaa jira iyaguna xoolaha magaalada lagu haysto magaalada waxaa lagu haystaa xoolahaasi inta u badani waa ari waxaa hadda soo bilowday oo hadda aan ku aragnay geedaha cuna geel waxaa jooga dameero waxaasoo dhan wax magaalada badanaa laga anshaxo maaha haddii xoolaha la xerayn lahaa haddana la soofin lahaa wax dhibaato ayna kuma hayeen dadka haystaana waa manafacadsan lahaayeen waxay ka dheefaanna xalaal bay u noqon lahayn laakiin xoolo badan oo lambar dheega lagaga buufiyo magaalada lagu sii daayo oo dhirta xaganaya oo sawirrada aan ka helnay haddaan idin tusno aad yaabaysaan ayaa magaalada ku jira isku day baan samaynay sanadkii hore muddo markaan wacyigelin wadnay qayb baan ka saarnay laakiin xilli abaaraa dhacay intii dambe waa ka saari kari weynay maadaama meel la geeya ayay jirin dadkiina ay maxaa la yidhaahdaa ayan qaadan talooyinkii aan siinay ahaa xoolaha inay soofsadaan oo xeraystaan ma ayan qaadan in badan baa weli magaalada lagu sii daayaa dad wanaagsan oo badan oo xoolahooda soofsadaan
oo xariistaana waa jiraan